Kooxaha waaweyn ee Yurub iyo xiddigaha sixirka kubadda cagta ayaa Muslimiinta ugu hambaliyeeyay munaasabadda Ciidul Adxa iyadoo baraha bulshada ku faafiyay tobanaan qoraal oo Carabi iyo Ingilish ah. Bayern Munich ayaa barteeda Twitter-ka ku soo daabacday qoraal ay ku qortay luqadda Carabiga, waxaana uu u qornaa sidan: Jana, Ciid waanu heesnay, hambalyadana waanu u dirnay Allianz Arena, waxaana u hambalyaynaynaa Ciidul Adxa Mubaarak dhammaan reer Bavaria ee ku nool dalka Carabta iyo Islaamka. Kooxda reer England ee Liverpool ayaa barteeda Twitter-ka ku soo dhigtay iyadoo u rajaynaysa dhammaan taageerayaasheena ka kala yimid dalalka Carabta iyo Islaamka in ay ku noolaadaan wanaag iyo farxad waarta munaasabadda Ciidul Adxa ee barakeysan. Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa sidii caadada u ahayd hambalyada goobjoog kaga ahaa, wuxuuna qoray sanad wanaagsan, ciid wanaagsan dhammaanteena. Manchester United ayaa sidoo kale hambalyo u dirtay, isagoo qoraalkiisa ku yiri: hambalyo dhammaan shacabka ku nool United Arab iyo Islaamka, waxaan ugu hambalyaynaynaa munaasabadda Ciidul Adxa ee barakeysan, waxaanu leenahay idinku soo laabta gacliyaal. Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa ugu hambalyeysay taageerayaasheeda Muslimiinta ah munaasabadan, waxayna ku soo qortay barteeda Twitter-ka: Ciid Mubaarak iyo sanad wanaagsan oo wanaagsan. Dhanka kale, Real Madrid waxaa ku yidhi bartiisa Twitter-ka: haddii aanu nahay Real Madrid, waxaanu hambalyo u diraynaa taageerayaasheena Muslimiinta ah munaasabadda Ciidul Adxa awgeeda iyo sanad wanaagsan oo wanaagsan. Ugu dambeyn, naadiga Paris ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidul Adxa u dirtay dhammaan ummadda Islaamka. Sucaad Maxamed Sheikh, Ibro Radio, Nairobi.